السلام عليكم maalinimo wanaagsan ku soo dhawaada maadadeena anatomiga casharkii saddexaad casharkeenu saddexaad maanta waxaynu ku baran doonaa laba qodob oo aad muhiim u ah barashada maadada tani oo ah levels of human organization iyo waxaynu kala baran doonaa human organ systems oo ah sistemada xubnaha jirkeena uu ka kooban yahay iyo heerarka ay soo maraan in ay sameysmo ama uu sameysmaba qof noole ah insha Allah casharkan nabadkiisa waxaan rajaynayaa inaad qodobadaani wax badan aad ka fahmi doontid biidnillah إن الله صار حدينا كوبلاونا خيبت كوادوا levels of human organization levels of human organization intaynu sabuurada aadin waxa muhiim ah inaynu fahamno inay u qaybsanto lix qaybood qaybta koowaad oo loo yaqaano chemical level qaybta labaad oo ah cellular level qaybta saddexaad oo ah tissue level iyo qaybta afraad oo ah iyadana organ level qaybta shanaad oo ah iyadana organ system level iyo qaybta ugu dambayso ah individual level ama organismal level taas lixdaasi ayaynu sabuuradu ku cadeyn doonaa wax yar sharxad ayaynu ka bixin doonaa haddaynu u noqono qaybta koowaad oo ah chemical level waxa ay martaa afar xaaladood ama afar stage ay soo martaa stage-ka koowaad waa atom stage stage-ka labaad oo ah molecule stage stage-ka saddexaad oo ah macromolecule stage stage-ka afaraad oo ah isagana oo ah midka ugu dambeeyo organelles marba hadday meeshaan soo gaarto marka waxaa meesha ku eg heerkii koowaad oo ahaa chemical level heerkani waxaa weeye ama inta badan ba uu noo cadeynayaa in ka hor inta aynu unugyo ka samaysmin aynu ka soo samaysano wax loo yaqaano chemicalada marka waxaa ugu muhiimsan atom oo isu tagay atomyadaas in waxay ka kooban yihiin proton neutron iyo electron kadib iyaga markay isu tagaan waxay noqon doonaan iyagoo badan molecule-kaasi kadib oo ah particles ayay particlesada markay bataan waxay noqon doonaan iyagana macromolecule oo ah particlada ay ka samaysanto DNA-ga ka samaysmaan proteinska ka samaysmaan fatska qaybta kale oo ayana organelles oo ah microscopic structureska ay ka samaysan tahay cellka gudihiisa mar waaynu sharxi doonaa waaynu arki doonaa insha Allah markaynu gaarno cell physiology ama cell anatomy markaynu tagno ayaynu ka sharxi doonaa insha Allah cellka gudihiisa waxa uu leeyahay organelles oo ah organo wax u eg oo yar ayaa ku jira cellka gudihiisa oo ay ku mid yihiin mitochondria ay ka mid tahay ribosome ay ka mid tahay cell membrane iyo in ka badanba intaasi marka afartan marxaladba markaynu isku darno waxaa loo yaqaanaa chemical level okay qaybta labaad waa cellular level waxa ay ka kooban tahay cells unugyo ayay ka kooban tahay sidaynu ognahay cell waa maxay cell waa basic structural unit of life oo loo yaqaano inay tahay asalka ama bilowga ay ka bilaabato dhismaha nolosha organismkan inta badan cell ayuu ka bilaawdaa sida buwaag inta badan ay qoraan laakiinse midkan ayaynu ka bilaawi doonaa chemical kadib iyada waxaynu siinanaa inay tahay heerka labaad heerka saddexaad waxa uu noqon doonaa marka by the time haddaynu dhahnay atomyo badan ama molecule badan isu tagay waxay noqon doonaan cell after cell markay noqdaan oo ah heerka labaad heerka saddexaad maxaa dhacaya heerka saddexaad waxaa dhacayo cells badan ayaa isu tagaya waxa ay noqon doonaan tissue ayay noqon doonaan waxa ay noqon doonaan tissue ay noqon doonaan oo ah tissue waa maxay waa nude heerkan waa heerka saddexaad oo ah tissue levelka marka waa maxay tissue levelka waxa weeye cells badan unugyo badan oo isu tagay kuwaas oo qabta similar function ayaa loo yaqaanaa okay iyagii ayaynu ka tagi doonaa waxay noqon doonaan marka tissues intay tagaan ay bataan iyagana markay bataan kadib waxay noqon doonaan in ay noqdaan waxay noqon doonaan organna waa maxay xubintaas maxay tahay xubinta waxay ka timid group of cells oo qabtaan specific function cells badan oo isu tagay kuwaas oo qabtaan waxay qabtaan howl gaar ah sida wadnaha oo kale indhaha oo kale wallahu musta'an sanbabada oo kale iyo xubin kasto jirkeena ku jirto waxay qabtaa specific function fasaxnaan filaan okay systemka kale oo ah systemka shanaad ayaynu dhihi karnaa waa organ system waa maxay waa xubin systemkeeda ama xubno systemkooda kan marka wuxuu ka yimaadaa systemo badan oo ah
organo badan oo isu yimid oo samaysmay system cafwan oo ah organkaani waxa loo yaqaanaa waa lungs organkaasi kalena waxa waaye waa heart oo wadnihi ah wadnaha iyo lungs-ka hadda waxay qabtaan hawshay qabtaan waa maxay circulatory system systemkaasi marka guud ahaan ay wadaagaan xubno ay waxa loo yaqaanaa organ systemka ugu dambeeya marka haddii askunkii uu ka soo bilaawday ma bilowgii uu ka soo bilaabnay chemical level cellular level aynu nimaanay tissue level kadib organ level after xubin waxaa ku xigo organ systemada waa 12 markaynu human organ systemska aynu galnay toos u sharxi doonaa 12 ka system markay buuxsamaan waxa bilaabi doono marka ama imaan doona heerka ugu dambeeyo ah individual level oo loo yaqaano organism level wala oo ah noolihii ayaa heerkii uu sameysmi lahaa la gaaraya oo ah haday intaani oo shuruud oo soo sheegnay oo ah chemical cellular tissue organ iyo organ system haday buuxsamaan waxa soo baxayo cali xaawo caasho libaax ari lo organismkaas ayaa soo baxay marka noocaas oo kale markay uu soo baxayo heerkaasi ugu dambeeyo marka waxa loo yaqaan individual ama organism level waxaan filayaa inaad wax badan ka fahantay markaynu ka hadlayno marka levels of human organization waxaan filayaa inaad qaybtii hore oo ahayd levels of human organization inaad si fiican u fahantay qodobkeena labaad waxaynu kaga hadli doonaa sidii balantu biino ahayd human organ systems hal mar sharaxaad kooban ayaynu ka bixino human organ systemska marka waxaynu kaga hadli doonaa horta waxaa jiro 12 systemyada ay uu ka kooban yahay jirkeena waxa ugu muhiimsan 12 system 12 ka system waxaynu sameyn doonaa waynu kooxayn doonaa qaar ayaa israaca marka oo kooxdaas markaynu bixin doono israaca qaarna waa ay kala tagaan qaar marka waxaynu u kala bixin doonaa ilaa 5 qaybood 5 qaybood oo kala bixin doono qaybta kood waxa loo yaqaanaa systemya hooshooda ay tahay dhaqaaqa iyo kaalmeynta iyo difaaca jirka u qaabilsan kuwaasi waynu sheegi doonaa oo loo yaqaano systems of movement support and protection ayaa loo yaqaanaa kooxda labaad aynu u kooxan doono waxa loo yaqaanaa iyadana waxa loo yaqaanaa inay tahay systems of fluid transport iyagana waxa ay hooshooda tahay inay dareere kaliya ay jirka ku wadaan systemka saddexaad aynu u kooxin doono waxa iyagana loo yaqaanaa systems ama system of reproduction taranka systemyada iyagana isku raacaya jira waynu sheegi doonaa qodobka afraad marka wuxuu inoo noqon doonaa system of internal communication and regulation oo ah waxa uu qabtaa kaliya in uu isku dheelitiro ama xiriirka jirka dhexdiisa oo communication isgaarsiinta jirka dhexdiisa ka dhaceysay oo uu sameeyo iyagana systemka qaar ayaa hawsha sameeya waynu sheegi doonaa systemka ugu dambeeya marka oo aynu casharkeenu kusoo gabagabeyn doono waxa uu noqon doonaa systems of input and output of the body system ay hooshooda tahay in ay jirka waxna soo geliyaan isla waxa ay soo geliyaan haddana ay jirka ka saaraan waynu sheegi doonaa casharkeenu gudubna marka haddaynu ku horumarna marka midkii hore oo ahaa systems of support movement and protection waxa ugu muhiimsan ilaa 4 ayaa soo galay laakiin 3 ayaa la isku raacsan yahay midka koowaad waxa loo yaqaanaa integumentary system waynu sheegi doonaa waynu sharxi doonaa midka labaad waxa ugu muhiimsan inuu yahay skeletal muscle isku daraa marar qaar laakiin isku darayno skeletal system iyo muscular system iyo muscular system midka ugu dambeeyo waxa weeye isagana immune system afartan system waxa la isku yiraahdaa system of support movement and protection waa systemyo qabta jirka u qabta inay difaacaan in ay maxalla dhahay ay kaalmeeyaan iyo inay dhaqaaqa fududeeyaan salaana hadda markaynu ka hadlano habdhiska qolfoofka iyo habdhiska murqaha oo kale waxay hooshooda tahay inay qabtaan waxay qabtaan kaliya inay sameeyaan movementiga okay jir difaac maxaa u qaabilsan iyo supportiga labadan ayaa u qaabilsan oo ah immune systemka iyo integumentary system inkastoo support markii laga hadlayo afartaba ay wada qabtaan sababtoo ah afartaba waa ay qabtaan afartaba waxay qabtaan support jirka ayay kaalmeeyaan haday difaac ahaan lahayd iyo haday socod ahaan lahayd iyo haday wax walba ahaan lahayd midkaani marka laga yaabo in intaan labadan aad taqaanid immune systemku waa jir difaac oo dhan integumentary systemkana waxa uu soo hoosgalaa waa systemka jirka dahaara systemka jirkeena dahaara oo ay soo galaan wax walbo marka jirkeena dahaara oo maqaarka uu yahay timaha ay ku jiraan biyaha ay ku jiraan dhammaan waxa loo yaqaanaa integumentary systemkani ama kooxdaani loo yaqaano systems of movement protection and support intaan ayaynu ka soo qaadanaynaa haddaynu u gudubno marka system kale oo isagana kooxdan ku jiro loo yaqaano system of fluid transport
system of fluid transport isagana waxaa ugu caansan aynu soo qaadan doonaa oo ah circulatory system iyo waxaynu soo qaadan doonaa lymphatic system. labadaani system waxa ay jirka u qabtaan wax loo yaqaano fluid transport. Fluid transport waa maxay? waxa ay qabtaan dareeraha jirka ku jira ama dareerayaasha jirka ayay marba waxay ku sameeyeen waa ay dhaqaajaan marba meel ay geeyaan. kuwaani labadan ayaa ugu muhiimsan oo ah circulatory systemkii waa habdhiskii wareega dhiigga iyo lymphatic system oo isagana lymphatic soo hoos gala. Okay, labadaani system hadaynu ka baxday system waxaa jira marka asal u ah ama markii laga hadlayo characteristics of living things ama characteristics of organisms. astaamaha noolaha markii laga hadlayo systemkani muhiim ayuu u yahay waana waxa uu kaga duwan yahay marka loo fiiriyo noolayaasha. inta badan noolayaasha ay lagu tiriyaa waana systems of reproduction. Systems of reproduction laba ayaynu u qaybin doonaa. labada ayaynu u qaybin doonaa oo ah male reproductive system ama male reproductive system iyo waxaynu u qaybin doonaa female reproductive system. habdhiska taranka ragga iyo habdhiska taranka dumarka ayaynu u qaybin doonaa. habdhiska taranka ee dumarka labadani ayaa loo kala qaybiyaa reproductive systemska markaynu ka hadlayno. markaad waxaynu baranay systemka movementiga, supportiga iyo protectionka, systemyada loo yaqaano fluid transport iyo systemyada loo yaqaano reproduction taranka. systemyada hadda soo socda waxaynu kaga hadli doonaa waana laba system oo inoo haray. labada system aynu isla aragno. systemyadii hore saddexdii aanu ku waxaynu waad fahantaan filaha. labadani dambe inuu fiirino marka. labadani dambe waxa weeye iyagana systemyo gaar u ah marka. midkaynu ku hormari doono waa systemyo gaar u ah input and output of the body. waa systemyo qabta kaliya jirka inay wax la soo geliyaan haddana wax ay ka saaraan oo ah input inay jirka wax ku soo daraan. jirka bini'aadamka ay wax ku soo daraan haddana waa ay ka saaraan. kuwaasi waa kuwee marka. midkani loo yaqaano haddaynu fiirino respiratory oo kale. respiratoryga waxa uu ka mid yahay systemkani systems of input and output of the body. waxaa kaloo soo hoosgala urinary oo kale. urinary isagana waxa uu ka mid yahay systems of input and output of the body. waxaa kaloo soo gala digestive systemka. digestive system isagana waxa uu qabtaa dheefshiidkii system of wuxuu ka mid yahay input and output of the body. Okay, respiratory markaynu ka hadlayno oo habdhiska neefsashada. neefsashada sidaynu ognahay waxaynu qaadanaa gases exchange way oo waxaynu qaadanaa oxygen ayaynu qaadanaa as inhalation ayaynu qaadanaa exhalation waxaynu ku saarnaa ama aynu tufnaa carbon dioxide. marka processkaas oo aynu hawada ku qaadanayno kuna bixinayno waa systemkaasi waa respiratory system. respiratory system marka intuu soo hoos galaa systems of input and output of the body. waad la fahmaysaa filaa. Okay, urinary system waa habdhiska kaadi maraynta ama excretory systemka. midkani wuxuu qabtaa waxa uu sameeyaa biyihii aynu qaadanay oo aynu cabnay ayaa hadhowdan waxaa lagu soo saaray excretion oo ah sidii waxaa lagu soo saaraya inay yihiin urination ayaa lagu sameynayaa oo kaadi iyagoo ah jirka laga soo saaraya. qaabkaasi marka loo soo saarayo systemkaasi wuxuu ka mid yahay urinary system oo ah systems of input and output of the body. midka ugu dambeeya marka waa digestive system oo aynu ku darayno kooxdan oo loo yaqaano systems of input and output of the body. waa habdhiska dheefshiidka. dheefshiidka maxay dheefshiidnaa horta? waxaa dheefshiidnaa cuntada aynu qaadano hadhow dambe iyada oo waxaynu soo saarnaa oo waxba nafaqo ah laga reebtay waxba wasaqana binaanka la soo saaray. marka waxaynu soo saarayno hadhow dambe waxa weeye waxaynu qaadanay wax kale ma ahan wax jirkeenu ku jirana ma laakiin waxaynu qaadanay ayaynu soo bixinaynaa. systemkaasi marka waa habdhiska dheefshiidka waxaynu ku tirin doonaa systemkani oo ah systems of input and output of the body. waad la fahantaan filaan. Okay, aynu u gudubno marka systemkeena ugu dambeeya marka waa midka mainka ah midka ugu muhiimsan. waxaynu ku baran doonaa internal communication and regulation. xiriirka ama isgaarsiinta jirka dhexdiisa ka socota iyo maamulidda dhammaan systemyada jirka iyo qaybaha jirka iyo dhammaan jirka maamulidiisa waxaa qaabilsan laba system. muxuu sheegay soo taqaana laba system waxay kala yihiin systemka koowaad oo ah nervous system. dabcan waa habdhiska dareenka nervous systemka iyo midka kale oo ah isagana endocrine system ama loo yaqaano hormonal system ayaa loo yaqaana. endocrine systemka iyo waxa weeye nervous systemka. Okay, nervous system oo ah habdhiska dareenkii iyo endocrine system waa kuwa jirka maamula. haddayna khaldaneen waayo nervouska waa dareemayaasha jirkeena. jirkeena maxaa lagu maamulaa? dareen ayaa lagu maamulaa. qaar voluntary ah qaar involuntary ah. ha ahaato CNS-ka oo central nervous systemka inuu maamulo ama ah in BNS-ka oo peripheral nervous system inuu maamulo. kor iyo hoos jirkeena waxa maamulo markaynu u noqono systemkaasi waa nervous system.
okay endocrine systemka waa hormonal system jirkeena systemka kale lagu regulation gareeyo ama lagu maamulo waa systemkaani loo yaqaano endocrine system ama hormonal system kani waxa weeye waa ductless ayuu sameeyaa inta badan qanjiro pituitary gland iyo ay kamid yihiin ayaa soo hoosgalo waxa ay soo daayaan secretion of hormones waaye blood streamka lagu soo daayaa meeshii loo baahnaa target cells ayaa la geeyaa labadani system marka waxaynu ku tirinaynaa systemkeena ugu dambeeya waa systems of internal communication and regulation wax walba marka jirka ay wada xiriir ah oo jirka uu sameynayo iyo jirkaasi in la maamulo waxa ka qayb qaata labadan system casharkeeni saddexaad ee maadada anatomiga maanta aynu kaga hadlaynaa levels of human organization iyo human organ systems halkan ayuu inooga egyahay dabcan waxaan rajaynayaa inaad wax badan aad ka faa'iiday ha ahaado cashar cilmi aad hore u haystay ama cilmi cusubba waxaan filayaa inaan ku caawiyey intii aan ku kulmi doono casharka afaraad waxaynu idinkaga tegayaa assalaamu calaykum